soddonkii bishii koowaad 1984 waxay ahayd xilligii diyaaradaha xabashidu weerarka ku soo qaadeen magaalada Boorama iyo deegaanada ku dhowdhow gaar ahaan degmada Dila iyo Dareemacaani. maalintaasi oo ahayd maalin xusuus murugo badan ku reebtay shacabka ku dhaqan gobolka Awdal. duulimaadka ay diyaaradaha xabashidu ku soo qaadeen magaalada Boorama iyo deegaanada ku dhowdhow waxay keentay khasaare ba'an oo isugu jiray dhimasho iyo burbur baahsan. kasako xasuuqa ba'an ee loo geystay dadka waxa kale oo ay dhulka ku sameeyeen diyaaradaha xabashidu guryo badan iyo dugsiyo ku yaalay magaalada Boorama oo xilligaasi ay ku jireen arday yaryar oo aan waxba galabsan. maalintaasi weerarka waxshinimada ah lagu soo qaaday magaalada Boorama waxaa lagu arkayay gudaha magaalada dhiiga oo sida daadka qulqulaya iyo meydka oo sida shinida rasaysan magaalada gudaheega gaar ahaan dugsiyadii ay xilligaasi ardaydu ku jireen. ma ahayn oo kaliya dugsiyada meelaha ay diyaaradaha xabashidu duqeeyeen waxay sidoo kale weerar ba'an u geysteen meheradaha ganacsiga ee ku yaalay faras magaalaha iyadoo isla markaasina lagu arkayay magaalada gudaheega dhirta ku taala iyo geedaha oo gabi ahaantoodba dhulka ku siman. sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah dhaawaca iyo dhimashada ayaa maalintaasi ku dhawaa 200 oo qof halka guryaha magaalada lagu baabiiyeyna ay ku dhawaayeen 100 guri. dowladii xilligaasi dhulka ka ariminaysay waxay magaalada Boorama u soo dirtay wafdi ballaaran oo uu horkacayay General Maxamed Cali Samatar oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo Muuse Rabiila Goodo oo isna xilligaasi ahaa wasiirkii madaxtooyada Soomaaliya. wafdigaasi ayaa markii ay soo gaadheen magaalada Boorama waxay isla markiiba booqdeen xabaalihii lagu duugay dadkii ku dhintay weerarka iyagoo isla markaasina soo booqday dhaawacii ku jiray dhakhtarka guud ee magaalada. kadib markii ay soo dhameeyeen booqashadooda waxa uu General Samatar la hadlay shacabkii xilliga ku dhaqnaa magaalada Boorama waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ciidana aanan ku gardaroonin caruur yaryar oo ardaa oo maqaarkood baranayay waxaa laga yaabaa darsiga ay qaadanayeen markaa inuu ka mid ahaa duruus diiniya. dad shacab caadi u nool noloshiisa caadiya ku jiro magaaladiisi ku nool sidaa foosha xun loo laayay. waxaan leenahay dadkii ay ka geeriyoodeen imaan Allah ka siiyo hana ku niyasimaadaan oo ha ku calool adkaadaan. annaga iyo awalba dagaal idinka dhaxeeyay wuxuu ku geysto nabar aad filaysay waxaa la yidhaahdaa naxdin male laakiin dagaalka annaga amxaarada naga dhaxeeyo kollayba annaga uma daadegno heerkay u daadegeen heerka foosha xun bini'aadanimada ka fog waxashnimada ah. kollayba annaga isuma quuro horay isuguma quurin hadda kadibna isu quuri mayno inaynu maatida laayno ma laayno maatida. waxaan loola jeeday bombooyinkaas iyo sawaariikhda magaalada meelo badan oo ka mida lagu burburiyey dad badanna ay nafta ku waayeen ama ku dhaawacmeen. haddii loola jeeday haltaa laguma baqdin gelin karayo shaki iiga ma jiro taa inaad geesinimo ziyaadaha ka qaadaysaan. la dul tago oo qolwala loo bixiyo oo wardi loo bixiyo oo shahiidiintaas bulkeedaas samayso degmada iyo gobolkaba in dadka shahiiday magacooda taalle oo loo dhiso. jaamac Sharmaaka Diiriye oo ah waxgarad ku dhaqan magaalada Boorama isla markaasina goobjoog ahaa maalintii diyaaradaha xabashidu weerarka ku soo qaadeen magaalada Boorama ayaanu kula kulanay magaalada waxaana wax ka weydiinay sidii ay maalintaasi wax u dhaceen. waxay ahayd maalin cajiib ah oo naan dhacdo oo kale aanan arag ama aanan laba arsheegi karin. sidaa daraadeed waxaan ahaa ciidankii difaac cirka ee Boorama waxaan joogay Boorama gudaheega saacadu waxay ku beegnayd meelaha 10 minida yar dhiman
ayaa subaxnimo markay dhammaan ardayda iskuullada ay wada galeen ayay ahayd markaa waxaa ii suuro gashay inaan ku rido xabado dhan 57 xabo oo aaggii kolka aan haysta ee ah iskuulka Sheekh Cali Jawhar oo aaggii kolka madfici aan haystay hawada waa la qaybsaday sidaa kolka hore baan u deganay magaalada Boorama markaa aaggii kolka aan haystay ahaa aagga iskuulka Sheekh Cali Jawhar yaalla dugsiga sare Sheekh Cali Jawhar markaa maalintaas maalin aad iyo aad u bay ahayd cirku wuxuu ahaa cir daboolan oo ceeryaan ay dabooshay diyaaraduhu ma aan baran kolkii hore waxbarashadii hore waxaan xoogaa sahlanayd inaan noo suuro gasho cirka oo caynkaa daboolan ka dagaalano markaa waxaa nala kulantay cirkoo ceeryaani qarisay oo naan cirku meel ka muuqata ayna jirin haddana diyaaradii Itoobiya inay sidaa noola dagaalamaan markaa waxay naga soo gelayeen qaybta bariga waqooyi ee imika jaamacadda Amuud oo kale ay ku taalo ayay naga soo gelayeen waxayna nooga baxayeen kolkay waxridaanba dhinaca galbeed koonfureed oo Itoobiya kolka ay naga xigto ayay nooga baxayeen markaa dhibaatooyin weyn baa meesha ka dhacay geeriyo foolxumo magaaladu mar qulay dantay ay kala yaacday wax taagan dad socda iyo wax mashquula iyo wax dhintay iyo wax geeriya dhammaantood ayay dhacday maalin mar qula rida xidhatay mid baa hebla ku dhacday horta waxaan kolkay wax kugu ridaan waxay u socdaan xaggii ay ka yimaadeen dawladoodu ka xigtay marka waxa laga yaabaa dhaawaceegu inuu meel fog oo ku dhaco inkastoo warar helaynay meel bay wax ku dhaceen ay ahayd haddana nooma suuro gelin waxaan anagu ridnay inaan kolkaa gacanta aan ku dhigno oon qabanno waxaa kale oo xusuusta murugada lihi ilaa hadda maskaxdooda kasii dhex guuxaysa ardaydii maalintaasi ka badbaaday weerarkii waxsinimada ahaa ee ay diyaaradaha xabashidu ku soo qaadeen magaalada Boorama waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii maalintaasi ku jirtay dugsiyada ay diyaaraduhu weerareen oo aan wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen maalintaasi bismillahir rahmanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam marka waxaan in yar ka sheekayn maalintii dhacdadii dhacday ee markaasi ahayd diyaaradda berigeena garaacday waxaan ahaa anigu markaasi Sandar 7 xaqiiqatan meelaha waxaan malaynayaa haddayna seekii qasnayn inaan nus saacihii ka soo noqonnay iyo inaan barkayo horta galaaskeenna ku dhex jirnay marka bahashu noo timiday xiin fara badan iyo argagaxda markaa nagu furmay argagaxii iyo xiinkii dabadeed waxaan maqalay garaacitaan ardaydii way kala yaaceen in badan waxay ku dadaaleen macallimiintu inay markaasi ku celiyeen way kari waaniyeen way naxeen kadib arrintii farahay ka baxday waxay ku dhacday rasaas markaa iskuulka labatriga oo in yarsan noo jiray ayay markaa ku dhacday iskuulka labatriga iyo dhayga waxba isku jirin waxa u dhaxaysay xad MCH-ka dhexe ee markaasi ugu horeeyay MCH-ka ugu horeeyay markaasi xarunta imikana kaasa markaa hooyooyin fara badan baa markaa kuwii ugu jiray isla maalinta oo markaasi hooyooyinka uurleyda ay xilliga la gaadhi jiray san u yaacayni inuu soo yaacayni markaa xaggii xaafada u yaacan leenahay ayaa waxaan nimidnay markaas inaan MCH-ka garab nimaadno MCH-kii markaan garab nimidnay waxaan aragnay hooyooyin markaasi qaar dhaawaca qaar markaasi dee maxay dhintayba ciyaalkii aan soo cararayno kale anigu inamay hor yaacayay waan waayba idin waxani iyo seef bahashani markaas markay ku dhacdo dhulkay qaraxdo fadhiday daadinayso wax kala yaacay ahayd alaabta kala yaacaysa kurka ka jaraysa idin inaan waxaan garanaya markaas ay hururdayo kale way gebigiisa ilmihii ka hor orday ku maray qiiq iyo waxa isqabsaday markaas meel gebigeediiba dambas geed weyn baa ku oli jiray markaas MCH-ka hortiisa geedkii baa soo rugmaday marka waliba soo gaadhin lama tirigani waa dhulka aad loogu dhintay ardaydu xoog ay markaas ugu dhinteen waan ka soo wareegay markaas oo dhinac kale koona kale ka soo maray anuu xoog u ordaya ayaa nimid markaas gurigeeyay balcad baa lagu dhigan jiray marka nimcadan dadku jalaabibta iska dhiganayaan xijaabka habli qaadanayaan ee abaayadaha iska sitaan ma jireen waxa shaari iskuul baa ku dhigan jiray iskuulka waxa naga dhaadhiciyay kalarkan huruuda xitaa laftarkiisa inay markaasi balcadu ay soo eeganayso diyaaraddu shaarkii yaraa bir hore toornay orodka naga dhacaya tan xaafadii sidoo kale gurigii waa ilaa ilmo yar oo markaa noogu yaray hooyadu mulku ahayd oo kaliya hata markaasi gurigii joogta taas oo markaasi ay hooyana isla iskuulkan laba tiriga ciyaal markaa la soo eriyay oo walaalaha ay laba ciyaal oo la soo eriyay ayay ku celisay hooyaha ku maqan iyo ilmihii yaray bay hooyo musha ku ahayd oo joogto guriga
caruurtii kalena dhammaantood ay madrasadii iyo iskuulka kala maqan yihiin baan dadkii yareed baan soo qaaday kuwii yaray kale macaamadaha ku kala maqnaa baan soo urursaday waan soo dhaqaaqnay marka xaggan faaraxyo buurta faaraxyaan miday anoo moodaya markaa buurta faaraxyo inayna markaas inayna buurta faaraxyo waxaan moodaya markaa inay dee madmadkeega ayaa buuraha ka qabta dadka naga dhaadhacsanaan jiray diyaaradda kadib waxaan soo wareegay buurtii anagoo fadhina carruurtii waan kala lumnay waxaa naga halaabay arday labadii arday hooye markaasi ugu tagtay muuse iyo maxamed bay kala haayeen maxamed intii aan isu gursanaynay markaa carruurta ilmaha yara dhaqan xambaaranayay ee kuwa kale kulba dhinac u doondoonayay ayuu soo gaadhay isaga oo gebigiisaba aad dhiig dusha ka saaran yahay dhiiggan markaa waxaan moodayaa inuu wada gebi dee isaga shabag diyaaradda ka dhigtay idin shabagu maahina hilibkii ciyaalka ee firdharbay ayaa ku daatay markaan diday nala joogtay ayaa markaa biyo qaado ka maydhay nabad kaliya hata markaa ka aragnay halkaa dhafoorka kaga yaala halkaa dhafoor taaga inankii yaraa soo kaxaysta waxa iga maqan markaa inan iyo hooyadii intayadii oo yaacayna ayaa buurtani midna hooyo markaa waxay buurta hoosteeda ka qaynaysaa caruur caynkaa yaa arkay bay leedahay ma kulli aad baan markaan xasuusta si kaan ku noqdaa maalinta laftirkii murugo weyn bay ku noqotaa waxa dhacday markaa in hooyo si nagu yeedhisay waan anaguna buurtii ka qayno waana kan hooyo baan ku yidhi halkanaan joognaa dadkii waxaad moosa faaja'a magaalada inay ka wada dhacdo argagax baa qabsa dadku iskooba dhan waxbay isku dhaafayaan naxdin iyo welwel baa dhacay markaa meelaan layloobi karin bayd maalintaasi naxdin leh xaqiiqatan waxaa dhacday inaan u yeedhay hooyo ilmihii yarayda afartanka kasoo ka bixi oon halkaan ka qaaday markaa 11 iyo barkii subaxnimo ayaa waxaa laisoo hooyanaan heshay 4 galabnimo waxa dhacday ciyaalkan allaana hay mid baa ku aasan iskuulkii batriga dumay waa professor Muuse Maxamed Diiriye wuxuu ku aasnaa markaasi iskuulkii dumay jabhad la oran jiray Horyaal ayaa ka timid degmada Qas oo soo gurmatay jabhadaas ayaa waxay sameeyay waxay dadkii dhaaw dhintayna way aasaysi kuwii dhaaw ahaana markaasi way faqaysay meeshana la faqayay hooyadii meel un bay istaagtaa la nagu dhaano markaan ka maqanay markii dambe hooyo nooga sheekeynaysaa waxay tiraahdaa meeshan ina kaygii ku jira ina kayga halkan ugu jira midkii way ka weydi dadkii go'ay kuma jiro bay halkaas ilma ay ku jira daabaysa eedaankii maqribka hortiya ayuunba meesha laga soo saaray markaa inankii yaraa isagoo markaasi meela waxba ka qabin isaga iyo laba arday oo miida ilaahay waa ka daar labadii ugu tala galna way dhinteen isagina isagoo noolba markaa soo baxay oo markaasi nolol ayuu markaasi ay ku soo soo kaxaysay kadib anaga halkan markaasan ayna soo kaxaysay xafadina keentay kulli maalintaasi maalin aad iyo aad murugo lahayd maalin aan leeloobi karin bay ahayd maalin naxdin laba ahayd ubax yar dawladana ubax laysa idin dawladda ciidamo la laaya ciidan cadow kugu abala laaya idku cadow ma waa ubad soo koraya xaqiiqatan nooc min adag aad u adag weeyaan yuhuudda ay iska saameeyaan xabashada iyo yuhuuddu aad bay iska saameeyaan waxa weeye amxaaradan maanta markaasi iyo daftarkeedu hay markaasi iskaga dhigayso Soomaaliya inay tahay jecel oo Soomaalida ka naxayso difaacaysa cadowga weeyaan islaamka waa yuhuudda walaalaheed oo yuhuudda gaaban weeyaan kulli markaa intaasan ku soo koobaya maalin murugal oo aad weyn markaasi naxdin la weeyaan digana oo hinaysan markaa xasuusto han ka saxsana oo aan aad ugu argagaxo wax kasta markaasi sheekooyin iyo history baa laga sameeyaa sheekooyinka hadda dhacdad carruurtaada ugu sheekaysid ama de walaalahayga yar yaraan markii dheeraad uga sheekaysid si kala noqon jiro rugmadi aad bay u adag tahay markaa ka sheekay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Cabdilaahi Xasan Boqorre ahna ardaydii barigii 1980kii diyaaraddu rushaysay Boorama ahaa starter 3 dugsiga hoose ee Xawtaako runtii waxay ahayd maalin murugo leh oo ummadda soo Boorama aad baa soo gaadhay diyaaraddu waxay ahaayeen 4 wayna rusheeyeen 10kii iyo barkii ay magaalada soo haabeen waxay soo mareen qaxootiga Darimacaani dabadeed waxay ku dhufteen 2 haamood oo ay moodeen magaaladii dabadeed way soo socdeen anigu waxa ku sugnaa maalintaasi seeraha Boorama waxaan ku eegeelo baan eegi jiray 4 baan ahayn 4tayda waa kala baxsanay runtii magaalada naxdin weyn ayay u ahayd maalintaasi xusuus taariikhiya oo ummadda Soomaaliyeed ay wada ogtahay bay ahayd arday badan baa runtii ku dhimatay oo dugsiga elementary-ga ka dhigan jirtay markaasi waa taariikh aad u ballaaran bay naxdin aad u ballaaran ummadda reer Boorama subaxii marka saacadu ahayd 7 barkii iskuulada u dareertay ummaddu waxay u dareertay iskuulada iyo shaqooyinka waxay ahayd runtii farxad isla 10kii iyo barkiina waxay isku bedeshay naxdin murugo leh dhimasho dhiig dhaawac xiin diyaarado
soo hadeeyay magaalada Boorama oo diyaaradaha hay'adda Ethiopia wista Haile Mariam kuwaasi oo ah miiga dagaalka ayaan hadeeyay anagoo magaalada oo dhan oo yaacdo dumar haween dhalinyar caruur waxba ma sheeginba wala wada wacnay dad badan bay leysay waxa lagu aasay seeraha taariikhdu way ku qoran tahay ilaa imika tuur qaylo ayay ku taalado taariikhdu ma duugowdo haddaan dadkaygu daranyada ka eegin dhibaatada maalintaasi ku habsatay magaalada Boorama waxay noqotay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu culus ee soo maray magaalada oo ilaa hadda looga sheekeeyo dhalinyartii xilligaasi yaryarayd iyo kuwii xilligaa kadib dhashay magaalada Boorama waxa ilaa hadda ku nool dad ay curyaamiyeen iyo qaar ay indhaha ka tuureen diyaaradaha xabashidu oo aan awood u lahayn inay maanta shaqaystaan oo ay nolol maalmeedkooda la soo baxaan waxa kale oo intaasi u dheer dadkii xilligaasi dhaawacmay inaynan awoodi karin inay ka sheekeeyaan sidii maalintaasi ay wax u soo gaadheen isku soo wada duubo maalinta ayaanan laga xusin guud ahaan magaalada Boorama marka laga yimaado xasuus kooban oo ay qoraan qaar ka mid ah shabakadaha ka howlgala gobolka Awdal mana jirto cid gacan qabatay dhibanayaashii maalintaasi ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii diyaaradaha xabashidu ka geysteen magaalada Boorama intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay duulimaadkii ay diyaaradaha xabashidu ku soo qaadeen magaalada Boorama sanadkii 1984 waxa barnaamijkan isku soo duway idinna soo jeedinayay anigoo Mursal Cilmi Cumar ah intaanu ku kulmi doono kankiisa kale dhammaantiinba nabad geliyo